waa qoysas ka soo barakacay degmooyinka Bariire, Qoryooley, deegaanka Oodhigle iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ciidamada dawladda iyo shabaab dagaal uu ku dhexmaray halkaasi. Deegaanka Garasbaaley ayay soo gaareen qoysaskan oo gaaraya 433 qoys, intooda badanna waxa ay ka soo lugeeyeen deegaanadoodii oo ay uga soo carareen dagaalo ka dhacay, waxaana ay dalbanayaan in lagu soo gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo. Awdheeglan ka soo qaxay todoba maalin joognaay ma haysano banaana joognaa ya ana oo macnaha oo kaalmo aan helno guri aan kooyino hunguri aan cunno musqulan oo biyo musqul nul sameeyo magaca Faadima Xasan Huseen Aliida Bariiraan ku soo kacay sagaal bariyan jidkan ka soo jiri oo maanta oo ko 12 shalay maanta 12 aan imaad xamar dad walaalyaha isoo wada wax anaga haasamale ilmihay sagaal waaye ayu aabahood jiraan ani kaliya dad oo meeshan soo rooraan soo raacay maanta oo xali dadan soo isii oo kula bari biyo ma haysto naagtan oo maanta ay dhahday meeshan ima mushqul iyo waxaana la diyaarna ay dhahday walaalyaal uu waa baahanahay waa rafaasin ilmahay duurka ku soo dhaafay aabahood ma joogay waa isla jiraan waxaan ka soo barakacay meesha la qoryoolay xagga Doombraale meel dhahay Doombraale waqti oo adaga oo badneen oo 4 bari 5 bari meelahaas la jooga aan ka soo barakacay hadda noor meel bariis oo meel yar oo bariis ka qaadan oo gubadtan soo dhaweysay moogi wax kale aan haysan ma jirto waxa u baahanahay wax walba u baahanahay oo noo garan karo waxa u baahanahay raashin si dadka ku nool oo hadda oo meesha baraka ah oo dadkii naga soo horay ku nool inaan ku noolaan anaga. Tani waa haweeney isku xilqaantay sidii dadkan ay u caawin lahayd, balse waxa ay sheegaysaa inaysan kaligeed ku filneen. Horta ummadda Ilaahay baa ku filan, isagaana sameeyay. Annagu waa caawinay wixii awoodeena. Hadda waxaan ku muddadaas 12 habeena santarka iyo geedahan hoostooda ayaan ku hooynaynay. Bacay kuwa ilmaha la huudaan, kuwa kalena ciidaas aad u jeeday seexdaan. Kuwa caruurta lena bacay huudaan. bacaha markay huudaan salaadi waagu markuu bariyo qaar toogsi aadaan qaar waxaan kurbal shaq meelaha soorta laga kariyay aadaan waxaan u sameeynaa annaka subaxii shaahan u karinaa saddexdii maalmood ugu horeysay bariisan u karinaa waan awood way ka bacdi inaan caawiyo soo dadku way fara badan yihiin mushaariyan u bedelo hadda mushaaridii iyo shaahi iyo waxaan ku war iscaawiyo qoftii awal maga ama meesha joogto ama qoftii ka soo horeysay shala meesha wax ka heshay ha raacdo meelaha soorta laga kariyay soo wareegan waa ku yaqaan la tusaa waa la kala geeyaa meel bariis laga kariyo meel rooti laga kariyo subax rooti aan waxaan ku leeyahay wax yar oo rooti aan u barakaynaa waxaan u awoodna male Allah ayaa wax u awooda wixii muslim oo wax ku sadaqaysanaya wixii hay'ad wixii waxaan ku wax u awoodo oo muslina waa dadkan waa dad dhibaatadooda xaaladooda noocaas ah. Maxamed Yaxya